السلام عليكم walaalayaal waxaan sii wadnaa casharadeenii PHP-ga maanta waxaan u fiirinaynaa waxa loo yaqaano PHP Super Global marka PHP Super Global waa variable ama Super Global Variables kuwaasoo programka PHP-ga hore loogu soo qoray oo macnaha way ku yimaadaan marka programka aad soo dejisanayso ama download ku sameynayso oo programkeena marka PHP Super Global kaas wuxuu u isticmaalaa inuu ka geli karo ama u yeeri karo meel kasta oo programka uu uga baahdo maaragtay variable kaas haday noqoto function adigoon u baahan qeexitaan function khaas u ah maaragtay waa functionno horena loogu soo diyaariyay oo aan mar walba access garayn karno macnaheedu waa intaas marka haddaynu fiirino tusaale ku saabsan PHP Super Global Variable haddaynu fiirino kuwan hoos ku qoran ereyga badanaa haddii loo baahdo in meel kasta laga galo loo qoro waa in lagu qoraa $sign global waa kaasoo ah variable loo isticmaalo in programkeena ku isticmaalo meel kasta oo looga baahdo waxaa kaloo jira kuwa la dhaho $_server bracket PHP self misana hadda kanoo kale waxaan u isticmaalnaa global variable kaas inuu noo sheego faylka programkeenu isticmaalayo $_server name wuxuu noo sheegaa magaca serverka programkeenu ku kaydsan yahay server address wuxuu noo sheegaa in IP addresska ama internet protocol addresska programkeenu ku kaydsan yahay server HTTP post wuxuu noo sheegaa cinwaanka serverka programkeenu ku kaydsan yahay marka globaliska waxaa badanaa sidaan hore u sheegnayba loo isticmaalaa in looga yeero global variable meel kasta oo laga isticmaalayo bal aynu fiirino tusaalahan badanaa waxaa la isticmaalaa waa ereyga sida meeshan ku qoran halkaa sida meesha ku qoran waa meesha waxaa loo isticmaalaa global then aad dhex gelinaysaa laba qaansadood index waxa weeyaan variableka aad rabtid inaad gudbisid marka tusaale aynu fiirino halkan masalan kasoo qaad programkeenu wuxuu qeexay laba variable oo ah x oo lamid ah 100 iyo y oo lamid ah 20 marka wuxuu functionkeenu qorayaa function yar oo aanu halkan ku diyaarinay oo ah isugeyn waa function qaadanaya labadaas variable oo global variable ahaan u isticmaalaya isuna geynaya labada variable marka meeshan halkan saad uga jeedaan halkan hoos waxa ku qoran waxaan u yeeraynaa functionkii bal si aan u aragno sida loo isticmaalo global variableka marka echo z kaas u jeedo wuxuu noo soo celinayaa wax alla wixii ku kaydsan meesha oo ay global variable ku qoran yahay halkaas global variable ku qoran yahay global z answerkeeda ayuu halkaas noogu qorayaa marka waa tusaale sida loo isticmaali karo global variableka waxaa kaloo jiro kuwo badan oo aan u baahannahay maaragtay loo baahan doono mustaqbalka markaan programka aan qorayno aan ogaano marka server waa global variable loo isticmaalo inuu xafido ama macluumaad la xiriira cinwaanada ama barta kaydka faylasha for example kan ugu horeeya kale server bracket PHP self waxaan u isticmaalnaa kaydinta magaca faylka koodka aad ku qorayso ku qoran yahay misal haddaad rabto inaad ogaato koodka faylka aad ku qorayso koodka then haddaad marka weydiiso server underscore and then PHP self aad tiraahid faylkaas ku sheegaya marka PHP waxaa kaloo mid kaloo jiro la HTTP referrer oo ah kaydinta magaca bogga internetka ee faylka laga soo qaatay waxaa kaloo jira mid la dhaho HTTP user agent kaasoo ku sheegaya aaladda aad u isticmaalayso meeshaad internetka galayso hadday noqoto kaydinta magaca browseradu wax kale maaha waa sida internet explorer chrome iyo firefox ama maxaa la dhahay qofkii isticmaalaya maaragtay mac waxay isticmaalaan safari marka PHP script name waa asagana mid kale oo u isticmaala kaydinta magaca faylka code ku qoran yahay waxaa kaloo jira kuwo kale misala for example waxaa kamid ah PHP underscore request waxaan u isticmaalnaa inaan ku kaydino macluumaadka laga soo aruuriyo isticmaalayaasha marka ay formka soo gudbiyaan iyadoo la isticmaalayo HTML form kasoo qaad haddii website-kaagu leeyahay form ah nala soo xiriir ama contact page oo qofku uu magaciisii iyo emailkiisa wax ku buuxinayo informationkaas soo aruuriskiisa waxaan u isticmaalaynaa si aan isugu soo duubno informationkaas waxaan isticmaalaynaa $_request marka muhiim weeye waynu arki doonaa si loo isticmaalo tusaale yaroo gaaban intuu noogu jiraa misalan kasoo qaad hadda wuxuu sameynayaa misalan programkan yaroo mid meesha dhinaca midig ku qoran halkan ku qoran wuxuu noo sheegayaa
information uu kasoo aruurinayo form qof magac oo form ku qoray markaasuu leeyahay haddii formku if empty name hadduu magacu maran yahay the echo ku qorto meesha name is empty macnaha magacu waa maran yahay haddii kale magacii waa kana marka waa kaas saasoo kale loo isticmaala marka sida loo muhiim waxaa weeye inaad fahamtaan sida loo isticmaalo request method marka aynu soconno php wuxuu leeyahay bisalan ka soo qaad variable kale oo ku waaweyn waxaa ka mid ah laba global variable oo loo isticmaalo laguna magacaabo post and get marka waxaa loo isticmaalaa in macluumaad aan kaga soo aruurino marka html formka isticmaalayaasha soo gudbiyaan iyadoo isticmaalaya bogagga internetka sida hadda tusaale hore iisii kanna waa mid kaloo la isticmaalo request get post marka post waxaa loo isticmaalaa variable laga soo gudbiyo programka aynu qorayno lakin get waxaa loo isticmaalaa badanaa get waxaa loo isticmaalaa in get waxaa loo isticmaalaa masalan haddaad rabtid inaad information linki aad ka gudbisid aad userka rabtid inaad meel kale u gudbiso ayaad isticmaalaysaa muhiimaddu waa taas insha allah kolley tusaale soo socdaan arki doonaa haddii ilaha yiraahdo halhalaan u qeexi doonaa haddii ilaha yiraahdo wal aynu fiirino sida loo isticmaalo haddii ilaha yiraahdo insha allah waxaan halkan tusaaleynaynaa sida loo isticmaalo maaragtay php global variables bal marka programkeena aanu bilaabano sidii aan qori lahayn marka hadda ka soo qaad waxaan waa sidii loo qori jiray marka waxaan sheegayna wuxuu yahay inaan fiirino inaan dhahno aan ku darno php bal aynu fiirino hal marka halkan waxaan hadda tusaaleynaynaa kaydinta magaca faylka codeka uu ku qoray aad ku qorayso uu ku qoran yahay marka so faylkan macnaha meeshan qoritaanka aan ku qorayno echo underscore server php self wuxuu noo sheegayaa faylka codekeena hadda ku qoran yahay marka bal aynu tusaaleyno haddii halkan hadda aan save ku sameyno waxaa arkaysaa aan refresh ku sameeyo halkan uga jeedaan wuxuu leeyahay faylkaaga wuxuu ku kaydsan yahay kaydka php tusaale magaciisana waxaa la yihahdaa tusaale underscore server global.php masalan macluumaadka uu noo soo gudbiyay hadda programka yaraa lineka yaraa oo codeka aan qornay ayaa kan ah wuxuu ku sheegayaa rootka ama meesha faylkaaga ku fadhiyo marka bal aynu hore usii socono oon fiirino haddana aan isaga laftiisa anagoo isticmaalayno un bedelno maaragtay u bedelno haddana waanu tijaabino kana waxa weeye user agent wuxuu noo sheegayaa browserka aan isticmaalayna inuu yahay Firefox inuu yahay Internet Explorer inuu yahay Chrome ama inuu yahay Safari haddaad isticmaalaysa Mac marka aanu save garayno walaanu fiirino halkan lineka hoose noogu soo qormi doono browser saad halka ujeedaan codekan hore kan waa kan noo sheegaya sida hadda aytaan aragnay linekaas codeka ku xiga waa kan noo sheegayo maaragtay macnaha inaan Chrome isticmaalayno soo ma jeeda halkaas ku qoran tahay Chrome 67.4 Safari waxyaalo badan uu ku sheegaya macnaha marka wuxuu ku sheegayaa noocyada isticmaalista marka kan hadda anaga isticmaalayna waa Chrome super globalku waxyaalaha uu ku sheegi kara xagga user agent haddaad rabtid nin web boggaaga galaya inaad ogaatid boggaaga suu kusoo galay inay tahay browser asagoo isticmaalaya browserkeedan sida keliya ku ogaan karta adoo isticmaalaya kan oo kale codekan hadda inta aan ku qornay oo ah http user agent marka waxaan qoraynaa hadda mid kale oo ah kan ah oo ah script name so marka waxaan leenahay halkanaan koobiyeynaynaa kanaan koobiyeynaynaa marka waxaan ku qoraynaa meeshaan bedelaynaa marka waxaan ku qoraynaa user script name
waynu ognahay waxa script namekeenu yahay because tusaale underscore dollar underscore server global.php that's the script name haddii wax walba ay sax yihiin oo syntax error waxba aanan helin waxa qasaba inuu noo sheego faylka magaciisa aan isticmaalayna marka bal aan tijaabino aan save gareey control s aan garaacayo bal aynu aragno saad ujeedaan waa ka linka ugu hooseeya ku daray oo ah faylka aad isticmaalaysaa waa kaas global.php wuxuu u dhow yahay marka loo fiiriyo rootka kan kore oon isticmaalayn haddaad u fiiriso kii ahaa serverka aan galaynay kan labadoodaba inay isleeyihiin marka macluumaadkay soo gudbinayaan mar walba waa isku mid laakiin midna wuxuu ku aadan yahay faylkii midna wuxuu ku aadan yahay serverkii taasaa muhiim inaad fahamtaan ya marka sida loo isticmaalo wax kale maaha haddaad doonaysid php self faylka isticmaalaysa script name waxaa kaloo jira waxyaalo kale oo annaga aan isticmaali karno sida kasoo qaad http refera aan ku darno balkaas aan aragna soo noqdo http refer wax kale maaha meesha bogga laga soo gudbiyay way wax kale maaha